Ma doonaysaa inaad wax ka ogaato jaamacadaha ugu tayada badan adduunka? Weliba ma isweydiinaysaa Isaac Newton iyo madaxweynayaasha Mareykanka soo maray jaamacadaha ka qalin jibiyeen? Muuqaalkani waxaan kuugu soo gudbin doonaa jaamacadaha ugu tayada badan kuwaasi ay ka soo baxeen rag badan oo ku guuleystay Nobel Prize. Qiimeynta jaamacadda adduunka ugu wanaagsan ayaa lagu saleeyay guulaha waxbarasho ee jaamacadda soo hoohisay, sumcadeeda cilmi baariseed, heerka ay ka taagan tahay cilmiga sayniska, iyo tirada ardayda ka qalin jibisay ee ku guuleystay abaalmarinta Nobel Prize iyo abaalmarino kale oo qaali ah. Waxaan kugula wadaagi doonaa qiimeynta jaamacadaha ugu wanaagsan adduunka. Jaamacadda Oxford ayaa kaalinta koowaad ka gashay. Waxaa loo arkaa marka loo eego darajooyin badan in ay tahay jaamacadda ugu fiican adduunka. Waana jaamacad Ingiriis ah oo la aasaasay sanadka markuu ahaa 1996. Jaamacaddani waxa ay ku taalaa magaalada ay isku magac yihiin Oxfordshire, waana mid ka mid ah jaamacadaha ugu da'da weyn adduunka, iyadoo wehelinayso jaamacadda Al-Azhar iyo Bologna. Maanta jaamacadda waxaa wax ka dhigta arday gaaraysa 20,000 oo arday. Waxaa jira heer aqbalaad oo iyadu u yaala, waana 17%. Ardayda ugu caansan ee jaamacadda ka baxday waxaa ka mid ah Elizabeth, Bill Clinton iyo John Gordon. Jaamacadda Cambridge ayaa kaalinta labaad ku jirta. Jaamacaddani waa jaamacadda labaad ee ugu da'da weyn adduunka loogana hadla Ingiriiska, waana jaamacadda labaad ee ugu wanaagsan adduunka xagga tayada waxbarashada. Tirada ardayda jaamacadda dhigata waxa ay gaaraysaa qiyaas ahaan 19,000 oo arday. Shaqaalaha jaamacadda ka shaqeeya waxa ay gaarayaan 6,000 oo shaqaale. Ardayda ugu caansan ee jaamacadda ka baxday waxaa ka mid ah Isaac Newton,